أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalahey Soomaali meel baa ka daawanaysa soo dhawaada dhammaantiin waa idin salaamaya dhammaan walaashiin Amiira walaal hadaa nagu cusubtaa please subscribe gareeya insha Allah casharka walaal share gareeya waad mahadsantihiin groupka ayaan salaamaya Englishka maasha Allah ilaahay idin barakeeyo dad wanaagsan maasha Allah oo dadaalaya ayaa halkan jooga ilaahay idin dhaafo walaal qofkii raba in lagu daro waa lagu daraya insha Allah telefonkiina iyo maxaa yiraahdaa area code-ka kusoo dara mafahamta insha Allah meesha joogtid oo telefonka soo dhamaystir hadii kale insha Allah marka walaalayaal waa kaas lacag la'aan weeye dadkoo dhan ayay u furan yahay intii wax baranaysa unbuu u furan yahay maya wax kale laguma soo tuuro meesha only English unbaa la soo dhigaa lagu hadlaa lagu sheekaystaa insha Allah marka waa kaas marka walaalayaal maanta casharka insha Allah waxa way grammar requested weeye waa layga codsaday insha Allah irregular verb marka insha Allah casharka waa laga codsaday maanta waa ka hadii la yiraahdo marka walaalayaal aan bilowno hadii la yiraahdo let me read first waan akhrinay hadii ilaahay raali iga noqdo what is irregular verb irregular verb is a verb which the past tense is not formed by adding the usual ed ending. Okay, let me read one more time. What is irregular verb? Irregular verb is a verb which the past tense is not formed by adding the usual ed ending. Example, regular verbs right here. Okay, regular verbs, present and past. Walked waan akhrinayaa first waan usoo noqonayaa marka walked baked closed compared irregular verb okay marka halkan present and past simple have had see saw buy bought be on a was singular plural word become became begin begun bring brought choose chose come came do did drink drunk eat ate fall fell find found get got go went sleep slept sell sold sing sung sit sat see saw fly flew leave left examples she bought a book for her friend Abdi left the house at 9 a.m. Abdi left the house at 9 a.m. I saw a cat yesterday. They forgot to buy some juice. I knew she was coming home. halkan mujada kayda lama akhrinayo waa silent kayga only waxaa leed I knew ma garatay kayda lama akhriyo I knew she was coming home she had a baby last week he gave money to his sister my son slept in the car.
he drank too much milk yesterday. He drank too much milk yesterday. She heard a new song on the radio. She heard a new song on the radio. They chose to eat chicken for dinner. They chose to eat chicken for dinner. Layla flew to London last night. Layla flew to London last night. They drove to Canada. They drove to Canada. She told me that she lived in Somalia. Oh, I'm supposed to put the capital this one. She told me that she lived in Somalia. I'm gonna fix it later, this one. She is not hungry because she ate all the cake. She is not hungry because she ate all the cake. I did my homework an hour ago. I did my homework an hour ago. I found your shirt under the bed. I found your shirt under the bed. She got a new toy. She got a new toy. The weather was very cold last night. The weather was very cold last night. I went to school very late this morning. I went to school very late this morning. Inshallah, waa nagu soo celinaya. Marka walaalayaal, what is a regular verb? A regular verb is a verb which the past tense is not formed by adding the usual ed ending. Marka halkan waxaa laga wadaa ereygan irregular haddaad maqasho waa caadi, waa garanaysaan. Irregularna waa waxaan caadigayn. Marka verbka waa actionka aan caadi ahayn aa lagu yiri magaste waa maxay? Marka waxa weeye actionka aan caadi ahayn waxa waaye waa verb action which kaasoo the past tense ereyga lasoo dhaafay is not formed marka la suubinayo looma form gareeyo ama looma structure gareeyo by adding adoo ku daraysid caadi ahaan ed. Sababtoo marka bastig aan suubinayno waxaan ku darnaa ed markuu yahay simbolka markasta ed waxaan ku darnaa marka maxaa ereyada maxaa la yisha verbka caadiga ah markan bastiga dhigano inta badan ed ayaa lagu daraa. Marka irregular markuu uu noqonayana oo kuwa irregular qaata ed ma ay qaataan oo irregular sababta loo dhaho waxa way isbedelaan way isgediyaan iyaga dhan ayaa isbedela formkoodii dhan ayaa isbedela ma garatay. Marka insha Allah kuwan halkan hadaa fiirisaan halkan wajada kan waa caadi present and kan waa past. Marka walk laga socodka pastiga laga dhigaa walked ed aa lagu daray. Kuwan waa caadi waa regular markasta waa caadi ed markasta laakiin waxa jira ereyo badan oo aan lagu darin oo iskala wareejiyo ayagana isbedelaa jira. Marka ma aragtay marka kuwaas maanta waxaan u dan leeyahay kuwaas ayaan u dan leeyahay. Kuwan waxa kaliya u soo qaat inaan idin yara fahamsiiyo xogaa xasuustiina aan soo yara celiyo ma garatay ayaan idin halkan closed ku jirtay waan ka saaray sababta closed kaas halkan iyo halkan sa ugu qoray waa qalad waan ka saaray ma garatay saa ugu gaad insha Allah oo haddaad baranaysaan ha ku darina meesha closed maya kaasito qalad waaye waa ka saaray ha ku darina markaasito isma keenaan ma garatay waa ka bixin insha Allah. Marka walaalayaal halkan walked waa socod walked taamin waa socde waa caadi saas ayaa loo qoraa kan waa sax weeyaan. Bake waa dubid baked means waa la dubay ma garatay. Compare waa marka wax isu barbardhigaysa compared waa la isu barbardhiga ma garatay wax marka laba wax isu barbardhigaysa ma aragtaa ayaa compared and compared waa. Marka halkan waxaan soo galaynaa irregularka halkan waa caadiya marka bastiga aad ka dhigaysid siduu isu bedelo marka waa kan ha insha Allah.
have dhowr jeeda have soo qaata I have a shoes I have a car I have waxaad haysatid waa ma garatay have waad haysataa waxa weeye present waxaad hadda haysid hadna that means waad haysatay that means hadda ma haysatid waxa markaas baad haysatay ma garatay marka saas have waan haystaa had waan haystay ma garatay hadda inaa haysato inaa kale ma garan laakiin had waxaan ognahay uun inaad haysatay markaa ma garatay and also this one had kan ma aragtaa wax walba oo I you he she kulli markuu past noqona isma bedesho ma fahanti war had which is good ma fahanti oo macnaa nolosha waa inoo fududaynaysaa insha allah so have pastigeeda irregularka waa waxaan oo dhan waa irregular wuxuu noqdaa had see waa araga marka wax aragtid ma aragtaa so that means waan arkay ma garatay waxaas irregular saan ayuu isu bedelaa ma garatay marnaba ha ku darin wax kale halkan markuu qaybtan yahay oo a simple past aad ka dhigaysid waa saan laakiin hadhow past participle qayb la dhahaa jirto weli ma gaarin annaga markaas aan ku darana wuu isi sii bedelaa xataa ma garatay marka insha allah markaan soo gaarno ayaan ku dari doonaa waana tus haddii ilaahay noo saamaxa see waa araga so waan arkay wuu arkay ama waan arkay waa waxaad aragtay ma garatay buy waa gadid waa iibsasho bought that mean waa soo gadatay like I bought a shoes like I bought a shoes that mean koba ayaan soo gatay or I'm gonna buy a shoes ama kobaan soo gadanaya aan fahamtay so bought waa soo gadatay ma garatay b waa ahaansho waa soo marnay b wuxuu yahay b-ga la dhahay waan soo marnay b-ga singularka muxuu noqonayaa pastiga was markuu plural yahay jamacu yahayna muxuu noqdaa waa remember how you they we all of them ay qaataan were pastiga ma garatay marka insha allah halkan become waa become waa ahaansho or become waxaad aad noqonaysid become let's say I became a teacher anuu macalin baa noqday I became a teacher halkan macnaha waxaan noqday hadduu noqdo halkan noqnaa become waa noqosho becamena waan noqday halkan weli waa noqosho weyaan halkan waad noqotay daamin wax tegay ma garatay I became a teacher I became a student aniga macalin baa noqday aniga arday baa noqday I became waxaan noqday ma garatay waa pastig saas ayuu isu bedelaa become became ma garatay saas ayuu isu bedelaa begin began that means begin waa bilaabid beganna waa la bilaabay ma garatay beganna waa la bilaabay wixii waa la bilaabay mar hore I began the lesson an hour ago casharka waxaan bilaabay saacad ka hor marka began wixii waa la bilaabay waa laga hor bilaabay markasta waa la bilaabayaan bring waa keenid brought that mean waa la keenay ma gaste I brought a pencil to all students macnaha qalimaan baa u keenay ardadoo dhan marka bring waa keenid broadna wixii waa la keenay ma gaste choose waa doorasho chose that mean mar hore ayaa la doortay chose ayuu noqonayaa markuu yahay irregular verb waxaan oo dhan waa irregular verb guys ogaas isu bedeliya markaad past ka dhigaysiin saas waa inaad xifdisaan waxa waa rule ma laha lagu barto laakiin waad memorize garaynaysaa sida xifdii sida quraanka oo kale ma aragtay marka insha allah come imaansha waay came waa la imaaday ma fahantay yeah came she came last night xalay ayay imaaday ma fahantay she came waa imaaday waa imaansho ja waa imaansho qofka wuu yimid ja imaansho do waa suubin didna waa la suubiyey ma kaste do did bring brought choose chose come came do did drink drunk yada waa cabitaan kanna waa la cabay ma kaste wixii waa la cabay waa plastic saas ayaa ka dhigaysaa eat waa cunitaanka ate macnaha waa la cunay already wax waa la cunay he ate dinner casho ayuu cunay daamin he ate dinner already casho mar hore ayuu cunay ma kaste ate waa la cunay ma kaste fall waxa waaye fall dhicitaanka qofka markuu dhaco dhulku dhaco kale oo imtixaanka ku dhacdo waa isku mid ma fahantay fail waa dhicid wax tagay dhicid ma fahmino waxaad dhici karta dhulkiina ku taraaxid uu noqon karaa imtixaana ku dhacdo uu noqon karaa fail
okay, yeah. Fall, fail. Dhicid. Find waxa weeyaan helid. Found wuu helay. Find helid. Found that means wuu helay. waxbaa ka dhumay wuu helay hadda. Found wuu helay oo way heleen. qof walbuu noqon karaa ma kaste. Get waa helid. Godna waad heshay. God helid. Godna waad heshay ma kaste. That means wax lagu keenayo lagu keenay waa ma kaste. kan laakiin wax oo kaa dhumay oo kale ma fact oo aad heshay waay. kanna waa wax lagu keenay. Get aad heshay. Godna wax oo aad heshay waa helid ma aha wax oo dhulka aad ka heshay maaha. waa suubin camal ma kaste. Like she got a pencil qalin bay like oh okay so I say I got a pencil that means waa soo gato kale noqonaya pencil ayaan haystaa. I got waan haystaa. Get waa helid. Godna waan helay ma kaste. marka find waa waxaad helaysid. Found that means lacala waxbaa kaa dhumay ma garatay. Found wixii waad heshay saas ayuu noqonayaa. laakiin wuxuu ku fiican yahay marka sentence ku darto more aad fahmaysaa maarta. hadda labadan waxaa u malaysa inay isku micno yihiin already markaan kuu tilmaamaya ma kaste. Go waa bixid. Went that means waa bixeen. wixii wuu tagay waa bixeen ma garatay. Sleep waa hurdo. Slept that means way hurdeen oo kale. Sell waa markaad dukaan joogta ama waxaad iibinaysa maarta. Sold that means wixii way dhammaadeen. Sold waad iibisay. Sing waa hees. Songna waa uu heesay. Sit waa fadhiiso. Sadna that means wuu fadhiistay. Sit sat wuu fadhiistay noqonaya. See waa aragga. Saw that means wuu arkay oo way aragtay. qof uu yahay wixii waad aragtay ma garatay. Fly waa duulimaan. Flew that means waa duushay. Airplane markaa qaadanayso oo diyaaradii way duushay oo kale. Flew that means way duushay. Also shimbirta way duushaa marka. The bird flew waa dhihi kartaa. shimbirta way duushay waa dhihi kartaa. Leave waa bixid. Left that means way tageen. hal maraan idin soo akhrinayaa qaybtan. bacd micnaha hoos qaybta hoosaan oo micnayna insha Allah. Walk walked. Bake baked. Compare compared. Have had. See saw. Buy bought. Be was were. Become became. Begin begun. Bring brought. Choose chose. Come came. Do did. Drink drunk. Eat ate. Fall fell. Find found. Get got. Go went. Sleep slept. Sell sold. Sing sang. Sit sat. See saw. Fly flew. Leave left. She bought a book for her friend. She bought a book for her friend. marka waxaan focus garaynaynaa irregular verb okay. She bought waxay soo iibisay a book bay soo iibisay for her friend. saaxiibadeed oo ama saaxiibkeed ayay book u soo iibisay. For her friend. saaxiibadeed ama saaxiibkuna saaxiiba for her friend. saaxiibadeed. She bought a book for her friend. saaxiibadeed weeyaan. saaxiibadeed weeyaan. Okay. Abdi left the house at 9 a.m. Abdi left the house at 9 a.m. Abdi wuxuu guriga ka baxay 9 subaxnimo ayuu guriga ka baxay ma garatay. I saw a cat yesterday. shalay waxaan arkay bisad ayaan arkay ma garatay. marka halkan kuwan waa subjectiga aan blue ka dhigay. kuwanna waxaa weeye irregularkii
irregularkii oo action verbkii actionka ah irregularka waa waxa all guduudkan ka wada dhigsaa ogaada insha allah waxaan idinkugu sahliyay saad aadan u wareerin marka laakiin kan waa ilooba kan mujeedaa ka soo qaad inuu blue yahay ma garat kan supposed to be blue insha allah waa iloobay sometimes waxa wax ma ark waa iloobaysaa ma arkaysid ala kulli xaal I saw waxaan arkay a cat yesterday shalay waxaan arkay bisad ama mukulaal ayaan shalay arkay they forgot to buy some juice waxay iloobeen they ayaga forgot waxay iloobeen to buy inay soo gataan some juice xoogaa juice inay soo gataan ayay iloobeen I knew she was coming home waan ogaa she was coming home inay guriga imaanayso waan ogaa I knew waan ogaa she was coming home iyada inay guriga imaanayso waan ogaa she had a baby last week she had a baby means cunug ayay dhashay wiigii lasoo dhaafay she had a baby last week waxay dhashay baby wiisitimaankii lasoo dhaafay so ogaadaya this is waxa weeye waa subject guys blue all the blue on subject insha allah he gave money to his sister he gave money to his sister wuxuu lacag siiyey walaashiis he gave money wuxuu lacag siiyey to his sister walaashiis ayuu lacag siiyey my son wiilkayga slept wuxuu seexday in the car my son wiilkayga slept wuxuu seexday in the car waa gaariga ayuu ku hurday he drank too much milk yesterday he drank wuxuu cabay too much milk caano fara badan yesterday shalay he drank wuxuu cabay too much milk caano aad u fara badan yesterday she heard waxay maqashay a new song hees cusub on the radio raadiyaha waxay ka maqashay hees cusub ayay raadiyaha ka maqashay she heard a new song hees cusub on the radio ayay ka maqashay they chose waxay doorteen to eat chicken inay chicken cunaan for dinner cashada they chose waxay doorteen to eat chicken inay chicken cunaan for dinner cashada Layla flew to London last night Layla flew to London last night Layla waxay u duushay London xalay Layla waxay u duushay London xalay last night they drove to Canada they drove to Canada ayagu waxay gaarigoodii u qaateen u drive gareeyeen Canada that means Canada ayay aadeen oo gaarigay qaatay they drove waxay u drive gareeyeen to Canada Canada ayay aadeen she told me that she lived in Somalia she told me waxay ii sheegtay she iyada told me aniga waxay sheegtay that she lived in ay ku noolayd in Somalia waxay ii sheegtay in ay ku noolayd ama ay ku noolaan jirtay ay ku nool she lived inay ku noolayd in Somalia inay Soomaaliya iyada ku noolayd ayay ii sheegtay she is not hungry iyadu ma gaajaysna because sababtoo ah she ate waxay cuntay all the cake doolshadii oo dhan ayay cuntay she is not hungry marka uu dhahaya waqtiga la hadlaya laga she is not hungry haddaan ku dhamin iyada ma gaajaysna waa right now waqtiga la hadlaya laga had she is not hungry haddaan ku dhaho that means haddadaani ma baahna sababtoo ah because sababta she ate waxay cuntay all the cake keegii oo dhan ayay cuntay mar hore cuntay soo maaso daamayna hadda ma baahna oo keegii ay cuntay I did my homework an hour ago waxaan suubiyey my homework means homework iskoolka layga soo siiyey casharadii iskoolka laygaga soo siiyey an hour ago saacad ka hor ayaan suubiyey I did waxaan suubiyey my homework iskoolkii waxa weeyaan casharadii iskoolka layga soo siiyey inaan kasoo shaqeeyo an hour ago saacad ka hor ayaan suubiyey an hour ago guys okay not an hour okay an hour ago
this is most people waa qaldaan kan ma garatay an hour ago I found waxaan helay I found waxaan helay your shirt shaatigaaga under the bed sariirta hoosteeda I found your shirt shaatigaada waxaan ka helay under the bed sariirta hoosteed ayaan ka helay she got a new toy she got a new toy daa markaan ku waxaa loo soo gaday toy cusub ayaa loo soo gaday she got waxay heshay a new toy ayay heshay that means familka ayaa u soo gaday that means waxaa loo keenay toy cusub ayaa loo keenay she got a new toy cusub ayaa loo keenay the weather was very cold last night hawada waxay ahayd very cold qabow aad ah last night xalay hawada xalay aad bay u qaboobay I went to school waxaan iskuulka aaday very late this morning waqti daah ah ayaan tagay iskuulka subaxani I went to school very late this morning subaxan waxaan iskuulka aaday waqti daaha ayaan iskuulka aaday walaal aad baa u mahadsantii waxaan rabaa inaad iisoo sheegtaan haddaa u baahantaan markaan akhrinayo inaan kusoo celceliyo ma garatay haddaad u baahan tihiin ila soo socotiin insha allah marka walaal intaasaan ku dhaafayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiina soo dhawaada aad baad idin jecla walaalayaal aad baa mahadsantihiin hawshaad wadaan qabta insha allah waa kaas gaarsiiya shargareeya okay salaamu calaykum farxad iyo wanaag iyo cimri dheer cibaado suban ayaa idinkaga tegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal casharka intaas ayuu ku ekaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin please subscribe dadka nagu cusub beelkana taawasa casharka saa u heshay insha allah and press the like button guys aad iyo aad idin mahadsantihiin dhammaantiina soo dhawaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaa khayr iyo caafimaad baa idin wada rajaynaya dhammaantiin